الرحمن الرحيم كل وعن وناكسن دمانتين با waxa aynu dul sabaynaynaa badda Somaliland gaar ahaan badda magaalada Saylac dalkan Jamhuuriyadda Somaliland waxa uu hodan ku yahay xagga deegaanada kala duwan haday badii tahay iyo hadii ay barrigi tahay intaba kuwaasi oo ah khayraad dihin oo dalkeenu uu leeyahay in ka badan 800 oo kiiloomitir ayaa ay xiriirsan tahay badda dalkan Somaliland waxa kale oo jira jasiirado fara badan oo ku dhex yaala biyaha badda Somaliland waxaynu imika ku suganahay magaalada Saylac oo ah magaalada qadiimiga ah ee ugu taariikhda dheer leh magaalooyinka kala duwan ee dalkan Somaliland tan iyo inta taariikhda lagu hayo waxaana la sheegayaa in ay magaaladan Saylac ay ka mid tahay magaalooyinkii ugu horeeyay ee ka aasaasmay bariga qaaradda Afrika haddaba barnaamijkan ayaa waxa hordhac u yahay dhowr barnaamij oo aanu kaga warrami doono xaaladda iyo duruufaha magaalada Saylac iyo deegaanada la xiriira iyo sidoo kale barnaamijyo kale oo ka diyaarinay guud ahaan deegaanada xagga xeebaha galbeed ee Somaliland barnaamijkan waxaynu si gaar ah ugu eegi doonaa ciidanka ilaalada xeebaha ee dalka Somaliland gaar ahaan saldhigga labaad ee gobolada galbeedka Somaliland ee xaruntoodu ay tahay magaalada Saylac sida ay u sugaan una ilaaliyaan badaheena iyo xuduudda dhinaca badda ee dalkan Somaliland ee aagaga iyaga ku wajahan iyo sidoo kale ilaalinta badda ay ka ilaalinayaan maraakiibta iyo kalluumaysatada sharci darrada ku soo gasha oo ay markasta heegan ugu yihiin waxa imka halkan ila saaran taliyaha aaga galbeedka ee ciidanka ilaalada xeebaha Somaliland Maxamed Yuusuf Otter kaasi oo aanu jecelnahay bal inaanu wax ka weydiino qaabka ciidanka Somaliland ee xagga difaaca baddu ay uga hawlgalaan ilaalinta amniga dalka ee xagga xeebaha taliye maalwanaagsan أحمد وحوي كلي ماشان ما أنا تاريخ سوق كود كرو لكن وحوي هل كان يبغى تاريخنا أتكسر شيء كيسي أياكو دهن حتى واحد تجي تونا ماله وفرح ضبطنا الجزائر كه وحوي عالمك أنا بالنسبة لي كنتي خيرات كهل كان يلا هطي طاي بدك كتشره التاريخ ده قاله وحوي وواحد نقول فيلموي كل واحد هذه شرطتكو منهم تاريخ الوطنية تاريخ ما أنت هل كان طالع إنك إيريا سيلع كدهني وين نقول فلانتا وين نقول فلانتا حتى يتعي متبدل جدا هي حتى يتعي متبري جيدا طالما وين نقول فلانتا إن شاء الله واحد بدن بين الصور كونا والجزائر كا وهو حكوري تاريخه ياله من على الله حتى يتعي حاجة كلوكا حتى يتعي حاجة خيرات كالي الحمد لله رب العالمين وحن تلاقي مانتا غير Somaliland نوردن وكفلي إمك سيل عينو كصوب حناي وحوجا دقيقة ينو سعودي كثيرة دوغوسو كسي سعادين انتي لك بي إن عينو سعرينا وحنو سعرينا كل عبينو سعرينا إمك كل عبينو سعرينا وايو مطع حوجي تبيلة كبير جدا نمك waxa ay soo gaadhay sida idin muuqata Sacaadadiin waa kasiiradaha ugu caansan dalkan Somaliland isla markaasina waa kasiirada ugu weyn ee badeena ku dhex taala kasiiradan ayaa waxay leedahay qurux dabiici ah oo Ilaahay uu ku manaystay marka aad eegto qaabka ay u taalo dhirta ka beeran quruxda iyo bilicda ka muuqata waxaan filayaa meel adduunka ka mid ah oo la qurxihi in ay aad iyo aad ay u yartahay
idin muuqata goobtan aynu ku sugannahay waa gacanka gasiirada Sacaadadiin oo sidoo horeba u sheegnay ama intii aragtay ay uga sheekayn karto una fahmi karto waa goob kamid ah ama anigu shakhsiyan aan oran karo maan arag meel kale oo ka bilixsan dalkan Soomaaliland guud ahaan saddexda goobood ee dalkan Soomaaliland ugu qurux badan ayay kamid tahay Sacaadadiin Daalo iyo meelaha la midka ah marka bad iyo bariba isku darto goobtan qofka lagu soo dhaxturo maskaxdiisu muddo fara badan ay deganaansho ay ku sugnaanaysaa muddo fara badan ayaa neecawda iyo naxariista ka soo gaadha jirkiisu aanay hore uga baahneen waa waxyaabaha qaniimada dalkeena ah ee u baahan in la hormariyo laga shaqeeyo tacab fara badanna la geliyo caalamkana meelaha noocan oo kale ah waxa ka soo gala faa'iidooyin aad iyo aad u tiro badan waxay ka mid tahay dalkeennii Soomaaliland badii isla markaa barigiina wada arkaysaan biyihii badana inaynu ku taagannahay way idin muuqataa taliye maxaad bal ku cabir lahayd gasiiradan bidcida Ahmed gasiiradan wax lagu cabiri karo ma garan karo waayo waa quruxdii waad aragtaa quruxdeeda qaabka Ilaahigay u dhigay waxa weeye kulli anigu waxaan leeyahay haddii aynu reer Soomaaliland nahay wax badan bay gasiiradani inoogu fadhidaa waxaan leeyahay dhallinyaradeenna meelaha u tahriibaysa war dalkaasaa leedihiin ha ka tahriibina kalluunkii iyo markii baradhada ahaaba isku shiilanaysaan nimcada kale ku duugan Ilaahay baa koobi kara taariikhda taalla Ilaahay baa koobi kara wallahi waxa weeye qof kasta oo reer Soomaaliland oo soo daala waa goob haddii uu yimaado uu ku nasanaya oo waan ku wari happy maskaxdiisu ay ku noqonaysaa sida uu Ahmed ba sheegay aad iyo aad ayaan aan leeyahay bilicdii dalkeena weeye Sacaadadiin kasaar kale badanina way jiraan oo dhinaca galbeedkeena naga sii xiga waxa weeye alxamdulillah rabbil caalamiin taliye waxaad nooga warantaa taliyihii ciidanka badda ee galbeedka Soomaaliland ayaa tahay balqaabka ciidanku halkan lagu hawlgalo sida nabadgelyada dhulkan siiba dhinacaad ka mas'uulka tahay ee badda maxaad nooga sheegi kartaa Ahmedow imka ciidanku uu naga shisheeyaa waxay degan yihiin xarun bay ku leeyihiin meesha la gasiirada la yiraahdo Eebaad nabadgelyadeedu waxa weeye waa taam runtii dalkan Djibouti ee xuduudda wada leenahayna waxa weeye si fiican baan wada shaqeynaa runtii Yaman oo kale waynu ognahay way burburtay Yamani waan iska katroolaa waxa ka soo gelaya inkastoo iminka ay inaga xiran tahay oo gaadiidka kalluumaysiga ee ka iman jiray sidii aad maqlayseen baryahan dambe uu mamnuucay wasiirka kalluumaysiga taliye waxaan baryahan maqlaynay dhaqdhaqaaq inkastoo wax cad noo sheegin xagga isku day tahriibidii waxa ku saabsan maxaa ka soo kordhay markaa anaadu tahriibtu way jiraan tii ugu dambeysay waanu qabanay haddana hariya habeen standby baan u nahay ciidamadu meelaha badda dhinaceeda ay ku teedan yihiin insha Allah waqti dhowna waxaan ku rajaynahay inaan soo afjaro ilaa hadda waxa baxay ma jiraan tii ugu dambeysay waanu qabanay iminka waxaan ugu qabanay meel yar oo lugaya xagga bariga ka xigta maxaa markaa badda saarnaa ma waxa weeyaan dadkii baanu qabanay laakiin gaadiidkii maanan helin oo way gaadiidkii waxa la ogaaday in dadkii laga qabtay marka ayaban kama soo bixin marka dadka suutireen leeg bay ahaayeen meel sidaay mise wala 16 qof bay ahaayeen marka waxaan u gudbinay
بليسك لانتا أمريكان بليسكان وكبيني بليسكا قاضي مركا مواطنين في الصومالية هاي مسدد أجنبي أو إثيوبياني وحصل غير سومالان بيحي guud ahaan amniga gobolka Sanaag xagga bariga iyo xagga badaba ayaa waxa uu yahay mid sugan iyada oo dhinaca bariga ay ciidamada qaranka booliska iyo ciidamada kale ee kala duwan Soomaaliland ay si wanaagsan uga hawlgalaan waxa saas inoo sheegay gudoomiye ku-xigeenka gobolkaasi Sanaag maraan xafiiskiisa dhawaan kula kulanay Cabdulqaadir Aadan Yuusuf waxa kale oo noo sheegay ciidanka ilaalada xeebuhu in ay si habsami leh ay gacanta ugu hayaan una sugaan dhammaan xuduudda xagga badda ee Soomaaliland oo ah mid halbowla u ah qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland in gobolkan wuxuu leeyahay xeeb aad u dheer marka sideeyin dhaqdhaqaaqyada xagga tahriibka oo kale ma la arkaa doonyaha badda hadii goor iska soo gali jiray ee sharci darrada bal arrimaas maxaad nooga sheegi karaysaa waxa saad ogtahay dhawaan waxa bilaabmay tahriib ka bilaabmay meelahan lagu haya area-deeda markii aan hawsha maqalnay waa ka hawlgalnay aad baa lagu hawlgalay ciidanka badda xoog buu hawlgalay badda waa la galay ilaa imika hawlgalka waa socda mid laga fariistay ma aha maalin dhaweyd ciidanka markuu hawlgalo badda galay wuxuu soo qabtay doontaasoo doon ahayd sharci darro ku kalluumaysanaysa mar kasta waa la soo qabtaa badda wixii soo gala ee sharci darro ku kalluumaysta halkan ciidanka waxa noo yeelan raadaal ciidankan wuxuu awood u leeyahay inuu arko badana waxa soo gala xuduudana waxa soo gala inuu halka ka arko raadaalkiisa ayuu awood u leeyahay waxa kale oo ciidanku awood u leeyahay inuu bartay joogan ugu ka soo qabto taasi waa guul xagga dawladnimadeena ah oo ciidanku awood u yeesho waa sharaf bay noo tahay imikana waxa soo qabteen oo halka imika noogu sugan doon sharci darro ku soo gashay badda qaar kale hore badan oo soo qabtay oo jiraan sharciga la mariyaa maxkamadda soo xibada ku socdo xagga tahriibkaad sheegtay inuu dhaqdhaqaaq soo bilaabmay waxa lagu qabtay ma jiraan oo tahriibeela loo qabtay marnaba may taasi ma suro dhumasha ah laakiin way xirantay hadda ciidanku badda geerkeeda waa daadsan yahay baddana uu ku jiraa waa sugan tahay sidii markii hore markii la sheegay in maqalay wax ka dambeeyo dhacay ama xarakaad damo qiimo jirto amniga waa laga sugay meeshaas waxay lagu qabtaan maxkamadda u taagan laakiin sida uu taliyaha qaybta galbeed ee ciidanka ilaalada xeebaha difaaca Soomaaliland ee xagga baddu inoo sheegay waxay ka hawlgalaan oo kale ciidanku in ay ilaaliyaan doonyaha iyo maraakiibta sida sharci darrada ah uga kalluumaysanaya badda Soomaaliland waxaanu maalmahan aan halkaas ku sugnayn kula kulanay iyada oo ay ciidanka ilaalada xeebaha baddu ay soo qabteen dooni laga leeyahay dalka Yemen oo kalluun sharci darro ah ka guranaysay xuduudda gudaha badda Soomaaliland waana kan taliyaha oo mar kale arrintaasi nooga warramay waa sax axmedow way jiraan baddeenana waxa weeye runtii waa bad aad u dheer alxamdulilah waxaa iminka qaar baanu soo qabanay iminka yamaniina baddeenna xadayay guranayay baa halkan la yidhaahdo libaaxu haddaaya wuu dhalaa xawayaankan baddu haddaayay dhalaan marka iyagu waa niman yaqaano oo dhulka lagu laayo baalku wuxuu ku dhalaa dhulka maxay ahayd halka badda iyo berigu ay iska galaan eeriyadaasay markaa jilaaliib u daadiyaan marka iminka waxaan idin tusi doonaa iyagii aanu soo qabannay libaaxii ay sitaan oo dhalaya oo waxaan ku wuri ay ku soo jilaaliib ku soo laayeen
doontu waa tan dalkii watina waa kuwan waxayna ka kallumaysanayeen biyaheenna waxay leynayeen nimankaasi libaaxii sawirkiisa waa aragteen waxa weeye libaaxu hadda ayuu dhalaa meelahan badda dhinaceedu ku dhalaa marka waa waqtiyada sida gaarkaa loo ilaaliyo jabuutina inta ay noo jirtaa qofka lagu arko mid libaaxa isagoo sita waa gudaha la dhiga waan ka xunnahay waanuna la dagaalami doonaa ciddii aanu dambe aanu ku aragno dadkana waanu uga digaynaa kuwana waanu haynaa iminka cadaaladana waanu horgeyn doonaa haddii alla yar مثلا kuwa kale oo aad soo qabateen bariyaha lagu dambeysay oo sidoo kale sharci darro uga kalluumaysanayay xeebaha Soomaaliland waan soo qabanay kuwa halkan yaala waa ka mid marka waanu qabanaa wixii kalena waanu ka hadal waxaan ku rajoonaynaa inaan soo qabano kalluumaysatada lafteeda badda ka kalluumaysanaysa maxaa shuruuda ku xulan kuwa muwaadiniinta marka laga hadlayo kalluumaysatada in walbi in kastay meeshii ama degmadii ama gobolkii ay ka hawl gasho waanu la soconaa dhaqdhaqaaqooda waanuna wada shaqaynaa xagga wixii informationana way noo keenaan markaa waxa weeyaan waxay ku galaan iyada oo la og yahay waa hagaag khayraad fara badan ayuu waddankeenu leeyahay sidaynu horeba u sheegnay berrigii oo xoolihii ah maxay tahay baddii oo kalluunkii iyo khayraadkeedii ah baryahan dambena waxaa soo noqnoqonaysay abaar dadka in badan bay xooluhu ay ka baxeen marka bal maadaama baddii inaad ku dhex jirtaan mas-uuliyiinteediina ay tihiin maxaa hortaagan ay idinla tahay sidii uu sare ugu kici lahaa koruqaadka wax soo saarka xagga kalluunka oo kale iyo ka faa'iidaysigiisu waa sax waxa weeye kulley waynu ognahay maanta xoolihii way yaraadeen way naga dhammaadeen xoolihii khayraadkii intii badda ay noo hadhay intii badda alxamdulilah waxaa mahad ilaahay ah dadku waxaad moodaa inaanay dadka reer Somaliland aanay aqoon u lahayn xagga badda siday uga faa'iidaysan lahaayeen laakiin aad iminka waxa loogu soo nayaayiri madaxweynaha cusub waxay ugu horreeyay ka hadlay waxay ahayd badda Muuse Biixi Cabdi kulli dadka reer xeebadkuna aad bay ugu hambalyeynayaan ciidamada iyaduna waanu ku hambalyeynaynaa waxa weeye khayraadkii badda waxa loo baahan yahay maanta sidaynu uga faa'iidaysan lahayn iyo sidaynu u ilaashan lahayn waxaan jecelahay inaynu u dhaganuglaan hadday xagga sharciga tahay inaynu u dhaganuglaano badda iyo shaqadeeda wixii khaldanna ku khaldanna aynu aad dhinac uga soo wada jeesano dadkayna ka xadayana aynu ka ilaashano hadday ciidan tahay iyo hadday shacab tahay taliya kasiiradan iyo kasiirada fara badan oo kale ayaa jiro oo gobolkan iminka aynu joogno ee Saleelo kaliya ay kasiiradihiisu sida jirta ay tobanba ka badan yihiin ama ilaa dhowr iyo toban ay yihiin ma jiraan xagga biyaha oo kale in laga heli karo ama dadka shacabka ma degi karaan oo ma degihiin sida ciidamadu baa ilaa hadda loo ogol yahay inay degaan oo ay soo dhex galaan wax shacbi ma degana ciidamadu baa degan kulley kasaayirku dee waxa weeye taa kuwa ajnabiga ee dalalkan inagu dhow ma arag
jazaa'ir shacab degan yahay xukuumadun baa degan kuwanana xukuumadun baa degan jasiirado hor loo imika soo samaysmaya ayaa iyana sida aad carabka ku dhufatay mar dhoweed oo arrimahan ka sheekaysanayna aad magacawday halkay ku yaalaan waxaana ii sheegtay inaad loo diiday magacii loo bixin lahaa way jirtaa waa jasiirada hadda samaysantay waxay ku dhowdahay hadda waynagu dhowdahay insha allah waxaan jecel lahay hadday samaysantay kaleemadkii dhulku dee wuu iswada bedelay iminka marka waa wax uun kaleemadkaasun isbeddelka cimilada ku samaysantay marka waxaan ku rajo weynahay beri dhow in aynu tagno magacna loo bixiyo weliba madaxweynaheenna cusub uu magac bixiyo aad iyo aad baad umahadsan tahay arrintaa iyo soo bandhigideeda iyo magac bixinta aad ku maamustay madaxweynaha somalilan in uu magac bixiyana waanu kugu mahadnaqaynaa ma aha tan oo keliya sidaynu sheegnay laakiin jasiiradani waa ta ugu ballaaran ee dalkan somalilan islamarkaasina ah jasiirad kuwa ugu bilicsan leh haddii ta koowaadba aan ahayn ka mid ah waxyaabaha ay hodanka ku tahay ama dabiiciga waxaa ka mid a dhir kala duwan geedkan oo kamida waxyaabaha caanka ku tahay waxaa la sheegay inuu faa'iidooyin aad u fara badan uu leeyahay mangrove ayaa afka qalaad ugu yidhahdaa afka soomaaligana magac baa jira uu leeyahay qandal baa la yidhaahdaa qandal inkastoo magacaasu iigu cusub yahay haddana waxaa la sheegay geedkan inuu yahay dhirta bilicda siyaadada ah u samaynaysa jasiiradan iyo bilicdeeda weliba waxaa la sheegay sida warbixinaha caalamka ka soo baxay la sheegayo inuu yahay geed wax badan oo faa'iidooyin ah laga helo caalamkana ku sii yar marka taaqudheedu waxay noqonaysaa arrin u baahan in dhugmo loo yeesho axmed horta taasi waa taa baala saxaafaddana waxaan leeyahay iska daaya waxaan maanta siyaasadan yar iyo waxaan maxay ahayd reebel baa caynkan iyo sidana kaalaya oo dadkiina u shaqeeya oo waddankooda quruxda uu leeyahay iyo wanaaggiisa ilaah baan ku dhaarshay ka shaqeeya oo ka daaya odayga yare halkan cimaamadda soo saaraya ee qabyaaladda ka hadlaya inaga daaya waxaa inaga daayo dalkeenna iyo quruxdiisa aan dadka u soo bandhiga waxayna yeelayaa iyo waxayna tarayana ee kala saara oo waxa carqaladda inaga keenaya miidiya haynoo gelinina ilaah baan idinku dhaarshay halkan aynu joognaa waa qayb ka mid ah isla jasiiradda sacaadadiin ama halka ay ka bilaabanto dacalka ay iska galaan badda iyo beriga gaar ahaan jasiiraddan sacaadadiin waxaad halkan ku arkaysaan kalluumaysato muwaadiniin ah waa dadka halkan noloshooda ka raadsada badda ee ka xoogsada una soo kollahaa si ay uga helaan yoomiyahooda amaba nolol maalmeedkooda iyaga iyo qoysaskoodu ay ku nool yihiin bal mid ka mid ah dadka muddada faraha badan ee ka ganacsan jiray amaba ka shaqaysan jiray badda ee kusoo kala jiray aanu halka kun kula kulannay magacadar cabdi cumar muddo intee leeg baad ku jirtay hawshan nolosha badda horta ilaa 30 sano aan waan ku jiray inta badda maanta inta sayda ee gaarkeeda 770 baan intaanu xeebta sayda inta badda uma dad ku dhex jiray wax nolol kale oo berri baan marka kol wax laga heliyo mar wax laga waayo badda horta waa baan ilaahay oo loo soo kala hom karansa marka de maalin iyo la yareystay iyo maalin wax laga helay inta oo ilaahay marka wal maalmeedka inta ma reer ku dabara hadii ilaahay ee bajiraan iyo noqoyada waxaad uga warta subaxii markaad soo kacdo ee doonayso inaad baddii in ka soo xoogsato maxaad samaysaa halkee baad ka bilowdaa anagu waxaan ka bilownaa horta dhaartii badiyaa ma shaqeynaa habeenkii baan shaqeynaa markaa shabaagna waan ku shaqeynaa oo buuti dushiisa laga dhigo iyo lugta laga dhigo labada
taasaan maanta ku shaqaynaa anagu dharaartii badayaa ma shaqayno walqaa qolada iyo kol la jilaabaa jira oo maalintii la shaqeeyo de anagu habeenkii waanu badanaa markaa laasho shir bad wadataan badda ayaad gashaan matalan intee lig badda ku jirtaan mad kalluunka kaga soo heshaan adugu badda dee kolba sidii alla wax kaaga siiyo maanta kol 5 cisho lagu jiro kol 4 cisho lagu jiro kol 6 cisho lagu jiro waa sidii aad wax ku hesho matalan markaad 4 casho kale ku jirto kalluun intee leeg bad soo heli kartaa adugu kolba dee wixii la keeno kol 100 la keeno kol 150 la keeno waa adugu khayra kolba waxda nasiib wixii dee alla dilo uma dhinta moogta wixii ilaahay kula kulmiyo baa la qabtaa wax ka soo qabtay adugu 130 meelahaas tayaan deegaana kiilo aan keenaa badan waxaad ka warantaa in aad hormarisaan soo saaridda kalluunka bulshadu ay u baahan tahay maxaa caqabadaha idinka hortaagan way anagu wixii karaanka wala soo saaray waxa weeyaan dadku suuqna anagu suuqay Djibouti oo de xaggeena horta suuq ma laga dheeriyaa marka caqabada kale nimo taagna wixii de ajaanib baa horta badda kulkooda ku jira oo maraakiib iyo dooyi iyo dagaalkooda dadka ma ajaanibka badnaa iyaga ajaanibkiina maartay imka waa laga saaray badidooda maartay way baxeen de maartay maraakiibtii wixii waa la saaray marka waxana de waaro baxsanaya marka jeeri iyo wax kasta markuu yimaado wixii waa waaro baxsanaya laakiin raadka hadduu ka yaraado wixii uu soo kordhaya markaas marka caqabad kale oo lagu joogto suuq iyo waxa jira iyo kalluunka soo saarko yar unbaa jiray wax kale oo dhibihi oo dhibna waxa yimi jiro mid kale ayaa la kulma oo isagu ah dhalinyarada dhinaca badda ku xigta magacawla oo la furmiga midda la badda shaqeynayay badan iyo ka xoogsigeeda waxaan ku jiray la maadaama wixii ilaahay noo qoran waan qaadnaa laashkaan waan la soconaa shaqada oo ku sheegay in laga dulqaaday in digtan waan ku shaqaysan maxaa markaa noloshaada ay ka bedeshay muddadii aad 5 sano ee dalkan ka raadinaysay arsaaqadaada noloshayda kulley sidii berigii aan kolka hore ku waday aniga way dhaantaa oo aniga ka shaqaysanay maadaama aan ka soo saaray wixii ilaahay qoray waxaad tabaysaan sida taageero ama in la idinka taakuleeyo ama tababaro lagu siiyo ama caawimo qalab iyo wax noocaas ma tabaysaan arrintaas baro wax waan tabaynaa qalabna nasiib u baahanahay shabagaan arrinta wax faa'iido badan oo naga maqan way jirtaa maxaad saaxiibta ku darsaday aniga maxamed xuseen Sulaymaan waxaan ku darayaa alxamdulillah nolol maalmeedka hadda beriga imka ila camalka aan nahay baan badda camal la'aanta baan kaga nacnaabaynaa ilaa anoo yar baan soo galay badda ilaa 17 sano ku jira alxamdulillah nolol maalmeedka marka ilaa reeraanka masruufna dhaqaale buuran oo ma jirto waa anka ilaa nolol maalmeedkayga kaliya anigu waxaan u hadlayaa gasiirada tan saacadiin saa darteed waxaan sheegayaa gasiiradu waxay taagan tahay horta sidii ilaahay uu noogu abuuray ee aan ugu uunayn dhulkan wax isbedel oo ay leedahay ma jirto maadaama aynu ibn aadan nahay ama dawlad Soomaaliland aynu nahay waxaan u baahanahay inaynu wuxuu ku soo kordhino taariikhiya wasaaradda xilka khaasatan calaamada oo la yiraahdo halka waxa noo samaysay oo lagu nastaa wasaaradda xilka ee Soomaaliland وين وحكة بدلوا وبرنامج كستو على صوته ويا وح أنا بقى أي دولة سومال لكو سوكر للسي جزيرة التن مجرتو دلالة دي أنا والله كهرباء ده كنا استان مركها وح الله يرحي وسائل ده بالحسكو إن لقاره هو يرتو وقريمة دني وجزيرة دي وكل واحد بدنيت وحول أنا كو حسوسنو هكو سوكر لصوت تاريخه